PTSD oo loo soo gaabiyey Post Traumatic Stress Disorder waa xaalad maskaxeed oo ka dhalata la kulanka ama qofka in uu goobjoog u ahaa dhacdo naxdin leh. Dhacdooyinkan waxay noqon karaan musiibooyin dabiici ah, shilal halis ah, weeraro argagixiso, dagaal, faraxumeyn, ama dhacdooyin kale oo sababi kara cabsi aad u daran, gargaar la'aan, ama argagax. PTSD waxay ku dhici kartaa shakhsiyaadka da' kasta leh oo ay ku jiraan carruurta. Astaamaha ama calaamadaha PTSD waxaa sida caadiga ah loo qaybiyaa 4 qaybood oo waaweyn. Qaybta koowaad ayaa waxay tahay xasuus xumo. Xasuus xumadu waxay noqon kartaa dib u dhac, taasoo keenaysa dib inuu u xasuusto ama dib uu u nooleeyo dhacdadii naxdinta lahayd sidii in ay mar kale dhacayso. Tani waxay noqon kartaa mid cad oo murugo leh. Sidoo kale qarowga, riyooyin qalafsan oo ku saabsan dhacdadii naxdinta lahayd. Sidoo kale fikradaha aan loo baahnayn iyo kuwa murugada leh ama xasuusta la xiriirta dhacdadii waxay carqaladeynaysaa nolol maalmeedka. Qaybta labaad, ka fogaanshaha. Ka fogaanshaha xasuusinta waxyaabihii xasuusin lahaa sida dadka, meelaha, howlaha ama xaaladaha xasuusinaya mid ka mid a dhaawacyada ama dhacdooyinka. Sidoo kale dareen qiiro leh, dhibaatooyinkii ay la kulantay ama uu la kulmay ama muujinta shucuurta. Tani waxay noqon kartaa dareen go'an ama dadka kale ka go'an. Qaybta saddexaad waa isbedelada xunxun ee ku yimaada niyadda iyo garashada. Waxay noqon karaan fikradaha taban ama negatifeka ah, aaminaad xun oo joogto ah oo ku saabsan naftiisa ama dadka kale, sida dareenka ama dareemidda dembi ama ceeb. Sidoo kale ka goyn ama dareen gooni isutaag ah, micnaha in uu dadka gooni ugu baxo. Sidoo kale in xiisaha uu ka lumo qofka howlihii oo xiisaha u hayn jiray ama uu qaban jiray oo muhiimka u ahaa markii hore in uusan wax muhiimad ah oosan siinin. Qaybta afraad, dareenka oo siyaado, feejignaan sare, in uu si xad dhaaf ah u feejignaado, sidoo kalena si fudud looga naxin karo, dareen joogto ah oo marba geeska gees inuu iska fiiriyo. Sidoo kale xanaaq fara badan oo soo noqnoqdo ama dabeecadiisa in ay isku beddesho dabeecad dagaal. Sidoo kale dhibaatooyinka hurdada, hurdo la'aan joogto ah. Sidoo kale in ay ku adkaato diirad saaridda ama xoogga in uu saaro howl. Ogaanshaha xanuunka ama si loo ogaado xanuunka PTSD waxaa muhiim ah in astaamuhu ay socdaan in ka badan 1 bil oo ay keenaan daciifnimo xagga la dhaqanka bulshada, shaqada ama arrimaha kale ee muhiimka ah. Dhakhtarka dhimirka ayaa caadi ahaan sameeyo qiimeyn buuxdo oo ay ku jiraan ama ku jiri karaan waraysi, su'aalo weydiin iyo dood ku saabsan taariikhda iyo astaamaha qofka si loo ogaado xanuunka. Daaweynta waxtarka leh ee PTSD waxay u baahan tahay isku darka daaweynta iyo xeeladaha kale. Psychotherapy, daaweynta cilmi nafsiga, waxaa ka mid noqon kara congestive behavioral therapy oo ah daaweynta habdhaqanka iyo garashada. Waxay ka caawisaa shakhsiyaadka in ay bedelaan fikradaha xunxun iyo dabeecadaha la xiriira dhaawaca ama dhacdada. Waxaa kaloo ka mid ah daawooyinka caadiga sida antidepressantska oo ah daawooyinka niyadjabka. Badanaa waxaa loo qoraa si ay ugu caawiyaan ama maareynta calaamadaha niyadjabka iyo walaaca ee la xiriira PTSD. Sidoo kale daawooyinka anti-anxiety medicationska oo ah daawooyinka ka hortagga walaaca waxay ka caawin karaan ama maareyn karaan calaamadaha walaaca iyo kacsanaanta. Mararka qaarkood waxaa loo qoraa daawooyin kale si looga maareeyo hurdo la'aanta iyo qarowga. Sidoo kale nidaamyada taageeridda waa loo isticmaalaa daaweynta cilmi nafsiga. Taageeridda waxay noqon karaan 3 mid. Tan koowaad, in la iskugu keeno koox cudurka xanuunka qabto, kuwaas oo meesha ku wadaago mid walba sida ay saameyntan ku soo gaartay. Kadib qof walba waxa uu dareemi doonaa in uusan xanuunka keli ku ahayn, sidaasina murugadii iyo walwalkii ayaa ugu yaraan doona. Midda labaad waxay tahay taageeridda qoyska ama familka. Markasta in ay garab taagnaadaan oo wax walba ay ka caawiyaan qofka xanuunsan waxay u noqonaysaa sidaasna in uu kaga bogsado. Tan saddexaadna waxay tahay in uu qofka nafsadiisa daryeelo, uu naftiisa taageero si uu ugu fogaado ama ugu caafimaado xanuunkan. Waxaa sidoo kale aanan meesha ka marnayn jimicsiga jireed. Wuxuu ka caawinayaa qofka in uu walwalka iyo murugada ay ka yaraato. Halkaas ayuu ka egyahay waxa inoo balana ciwaanada xiga hadda waa la idmo. Khayr badan.